daawadayaal kusoo dhawaada fiidiyogan oo aan uga hadli doono cudurka kaduudiyaha oo inta badan Soomaalida dhibaato badan ku hayay. Waa maxay kaduudiyaha ama kaduudshe? waa magac ay Soomaalida ula baxday xanuun safmar ahaa oo ka dilaacay Soomaaliya sanadkii 2005. inkastoo xanuunka waagaas lagu wareeray oo dhaqaatiir badan oo bahda caafimaadka ah isku khilaafeen, qaar waxa ay dhaheen waa dengue fever, qaarna waxa ay dhaheen Rift Valley fever, balse bilihii la soo dhaafay ayuu xanuunkan mar kale aad ugu dilaacay qaybo ka mid ah dhulka Soomaalida sida Somaliland iyo Puntland. waxaa ka sii horeysay mar kale 2016 oo uu koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya aad ugu dilaacay. haatan ayuu haddana ka dilaacay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. laakiin magaca saxda ah ee xanuunkan waxaa la dhahaa chikungunya. waa xanuun uu keeno jeermiska fayraska, waxaana lagu kala qaadaa qaniinyada kaneecada, waa sida malaariyada oo kale. calaamadaha ugu badan oo uu qofka dareemo waa qandho, kalagoosyada xanuuna, kalagoosyada oo barara, madax xanuun iyo murqo xanuun. mararka qaar wuxuu wataa faruuro jirka ka soo yaaca. magaca xanuunkan chikungunya asal ahaantiis waa luqadda Sawaaxiliga, macnihiisuna waa qalqalooc u socod ama qalooc u soco. qofka xanuunkan qabo si toos ah iskuma toosin karo marka uu soconayo, waa inuu isqaloociyaa xanuunka dartiis. waa xanuun lagu yaqaan wadamada Sawaaxiliga ku hadlo iyo jasiiradaha ku teedsan badweynta Hindiya, laakiin waa xanuun si sahlan ugu faafi kara meelo cusub. waxaa la sheegay inuu Mareykanka oo aan laga aqooni xanuunkan uu gaaray sanadkii 2013, lana aaminsan yahay in laga soo dhoofiyay bariga Afrika. haddaba su'aashu waxa ay tahay, kaduudiyaha halis ma noqon karaa? xanuunkan badanaa dilaa ma ahan, laakiin qofka dhowr maalmood ayuu howlgab ka dhigaa, mana aan xanuun talaal iyo daawo toona leh. waxaa ugu muhiimsan in qofka xanuun baabi'iye iyo qandho-jabiye uu qaato inta uu xanuunka ka gudbayo. waa inuu qofka cabaa biyo badan si uu uga fogaado halista fuuqbaxa, waana inuu ku dadaalaa nasiino. ka fogow in aad qaadato daawada antibiyootiga ah, xanuunkan waa kaaga sii dari karaa. dadka badanaa u safra meelaha uu xanuunka ka jiro waxaa lagula taliyaa in ay ka fogaadaan qaniinyada kaneecada, ayna isticmaalaan mara kaneeco. xanuunka kaduudiyaha sidee ayaa loo baaraa? xanuunkan waxaa lagu gartaa qandho iyo kalagoosyada oo dhan oo qofka xanuuna, laakiin waxaa jira baaritaan dhiig ah oo lagu ogaanayo fayraska keena kaduudiyaha. mana aan baaris meel kasta laga helo, laakiin wadamada lagu yaqaano waa laga helaa baaristaas, waxayna jawaabtu qaadataa isbuuc ilaa iyo 2 isbuuc inta u dhaxaysa. kaduudiyaha dilaa ma ahan badanaa, laakiin wuxuu qofka ka dhigaa tacbaan sidii qof jajaban oo kale. dhaqdhaqaaqa uu ugu sii daraa qofkii uu ku dhacay wuu xasuustaa calaamadihiisa. waxaase jirta arrin la isku khilaafsan yahay oo ah in uu soo laabtay iyo in kale. adigu weligaa ma aragtay qof uu ku dhacay oo uu mar kale ku soo laabtay?